يا فنكي كور هرت فنان حاسة واديني مر دم noloshaada ina hees dama qaado mar ilaahay irsaaqad meelaha nooga furo insha Allah dadka fankaada dhageysanaya maxallada arintan Soomaalidu waxay ka aaminsan yihiin laba mid buuq iyo qeylo dheeraad kadib qaar waxay taagan yihiin السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولكن يابس 24 له ورهي أديها هل كان محكوها هنا ومانت وحكلا معهن وحكوا أركي كليب تيك توك أركي كليب كاسوة حليم الجبات أبشر وحوا يقول نسوه يتي قفتاسنا وحوا حليم الجبات إن بعد معهن فيديو كاسوة حليم الجبات يحاج جيد وحاجك إسلا جوجو أيضا حاجك جوجتو oo taagan ee wuxuu ku dhawaaqday eri inaba aan caadi ahayn waxa waaye waa go'aan oo qof ma taa qaadan karo go'aankaas oo kale go'aankaas ee meesha ku qaadatay hadda markuu xarabnaa inaan hor dhacana ma rabo videogii rabaa inaan soo bandhigo oo daabano kadib sida aniga dareemay iyo sida aniga ila tahay rabaa inaan ka hadlo meeshan ku soo bandhigana taas videogiina waa kana hadda marka daawasho wanaagsan يا فنكي كور هرت فنان حاسة واديني مر دم noloshaada ina hees dama qaado mar ilaahay irsaaqad meelaha nooga furo insha Allah dadka fankaada dhageysanaya maxallada waxaan leeyahay insha Allah fankayga dhageysanina mar kale wixii dambi aan gal ilaahay naga cafiyo dhamaanteen aniga waxay taagan tahay fan dambo maligu arkaayo irsaaqadana ilaahay meel wanaagsan ilaahay naga siiyo taas waxa dhiileen aamin waxay taagan tahay xarabkay taagan tahay inaba caadi maahan meeshan waxa qof walba meesha ku riyooda waaye waxa walba ay ku duceysato waxa u rajeenayna in ilaahay oo aqbalo rizqeedna ilaahay oo waasic ugu dhigo ilaahay cariirin u geeyo daaranka kale ay dhiibto waxa waaye heesii maadaama aniga ka baxay waxay taagan tahay heesahii la dhageysanin faraha laga qaado qofkii mobilada ugu jiro delete ha suubiyo okay wixii dhanka kaalay marka Soomaalida maxay ka aaminsan yihiin marka arintan Soomaalida waxay ka aaminsan yihiin laba mid buuq iyo qeylo dheeraad kadib qaar waxay taagan yihiin xalimo gobaad waxa u geysay codxumada ee fanka ku joogto fanka ayaantan shiido noqday inaba caadi maahan dadkii dhan buuq iyo qeylo iyo wax aan loo joogin ay ka hadlayaan nin walba kilibka uu arkay dhac asa fasirta xafaamta marka adiga okay meeshan aniga hadda waxa u fadhiya waxa rabaa fikirkayga inaan ka dhiibto sidee aniga ila tahay adigana waxa kaaga baahanahay sidee adiga kula tahay in aad commentiga hoos noogu soo qortid anigu waxa isleeyahay xalimo gobaad waxa u duceeya umaleena dadka Soomaalida marka dhahayo taageeraheeda mise familkeeda mise xaajiga ee hadda ay guursatay u duceeyo ama waxa laga yaabaa in ayada ay duceysay oo ducadaas maalin samad ee furanta oo ilaahay ka aqbalay maanta waa ka saab يا فنكي كور هرت فنان حاسة واديني مر دم noloshaada ina hees dama qaado mar ilaahay irsaaqad meelaha nooga furo insha Allah dadka fankaada dhageysanaya maxallada waxaan leeyahay insha Allah fankayga dhageysanina mar kale wixii dambi aan gal ilaahay naga cafiyo dhamaanteen aniga okay dad waxay taagan yihiin si xajka u tagta marka ayada maadaama qofta fanaan ahayd lacagtan oo xalaasha oo xajka lagu tagaa inta ka keentay Allahu a'lam horta taas aanka ma dhigi karno meeshaas ka keentay inta ka soo qaaday mar raba inaan hadda si dhax galo xajigeeda daba socdo dabcan aan waxa isleeyahay wax way isku darsadeen sidii ay meesha ku imaadeen ama xajiga keeni karaba ama ayada wixeeday ku imaan kartaa taas anaka nama qusayso xalimo gobaad waxa
gaartay go'aan inaba aan caadi ahayn aniga sidaas leeyahay inaba caadi maahan xalimo gobaad waxaa gaartay go'aankaasna insha Allah ilaahay ku waafajiyo ku taagnaaw waxaa gaartay go'aan culus xaajigaadana meeshuu kula taagnaay wax walba dhagiiso ku maqlaay waxaana taagneedeen xarabka ilaaha naga aqbalo irsaaqadiina ilaahay bedel kale meel kale ilaaha naga sii laakiin waxaa laga yaabaa videogan inaad daawan doontid 2 iyo 1 xalimo gobaade Soomaali weyn way ku xiisi doontaa Soomaali weyn way ku xiisi doontaa maadaama fankii istaajisay anigana shicibka waxa u sii baasaya hadii wixii daawan doona videogan in ayna dhageysanin xalimo gobaad heesteeda because waxa yeelay Soomaalida marka la dhaho waxa ka jooga way ku carra marka la dhaho qurbaha yaa la aadin wala ku soo wada carra intii yaa la aadin wala wada carra xafaamta marka adeeg yaa fanki ka war horta waxaas dhan waa deynay mar dambe noloshaada ina heesda maqaado mar ilaahay irsaaqad meelaha nooga furay insha Allah dadka fankaada dhageysanaya maxaa leedahay waxaan leeyahay insha Allah fankayga dhageysanina mar kale wixii dambi aan gal ilaahay naga cafiyo dhamaanteen anigii sida hadda BK oo kale maalmuhu joojiyay waa aragday sida Snapchat-ka ugu socotay meelaha loogu shidaayay dada xataa dhar ku dhaqanaayay dada alaab ku dhaqanaayay way jecel yihiin Soomaalida way jecel yihiin shamiindada inay lugaha kula jiraan iska waqtiyan xafaamta marka ay garantiyo ku dhahay 100% ku dhahay inaa heestada joojin doono marmar waa laga yaabaa dhageyga inay maqlaan laakiin aniga ahaan waa iska ilaalin doona inaad dhageysto heesahaada fadlan hadaa channelka ku cusub tahay like subscribe-ka noo saar share-kana noo dheh sida u helna asxaab wanaagsan sida adiga oo kale haddana waxaa ku dhahanaa stay safe stay clean nabadgelyo